Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sawir hagaajinta ama sawir marka la qurxinayo kaliya uma baahna inaad computer haysato ama isla markaasna aad ku hagaajiso Photoshop. Adigoo mobilkaaga haysta ayaad ku hagaajin kartaa oo aad ku qurxin kartaa sawiradaada. Inta badan dadku waxa ay markaa sawirada ku galaan kaamirooyin markaa aan ahayn ta originalka ee telefoonka uu leeyahay. Kaamirooyinkaasina waxa ay wataan markaa filter ama colors bay wataan. Kalarka ay sawirada u sameeyeen awgood ama kalarka ay kamaradu markaa sawirka raacisay awgii lama edit gareyn karo ama markaa kalar kale lama saari karo. Saas darteed haddii aad rabto in aad sawirkaaga qurxiso oo sawirkaagu markaa kalarku si fiican ugu qabto ama markaa aad effects aad ku sameyn karto, waxaad u baahan tahay in aad sawirka iskaga qaado kamarada originalka ee markaa mobilka uu leeyahay. Kamarada originalka sawirka marka aad iska qaado ma qurxinayso wax filters ama effects uma sameynayso sidada originalka ee caadiga ah ayay kaaga qaadaysaa. Saas darteed sawirka waad qurxin kartaa oo wax kale markaa dheeri ma jiraan, kaliya waxa aad ku darto umaad ku qurxin kartaa. Hadda sawir baynu hagaajinaynaa, sawirkana waxaynu u adeegsanaynaa barnaamijka Snapseed. Snapseed marka aad soo furto waxa ku soo bixi doona markaa adeegyo fara badan. Hadda sawirkan kaaga muuqda shaashada waa sawir aad u qurux badan. Background-kii la qurxiyay, sidoo kale color-kii la qurxiyay, bal iminka markiisa hore soo haaban eeginaa. Wadiga arkaya sawirka marka ugu horeysa waxa aan ku qaaday ama marka aan isku sawiray mobilka kamaradiisa originalka ah. Saas darteed kamarada originalka wax filter ama color ama effect kumay darin. Wadiga arkaya inuu yahay sidii originalka midabkii caadiga ahaa marka originalkiisi weeyaan. Saas darteed marka aan kaleereeyay aan qurxiyay qaabkan u ekaaday waana marka sawir aad u qurux badan ayuu noqonayaa oo aad marka social media ama asxaabtaada ama bulshada aad la wadaagi karto. Sawir aad u qurux badan oo indhaha soo jiitana waa noqonaya. Haddaba sawirkan ayaan eegnaa qaabkii marka aan u sameynay ee aan qaabkan ugu bedelnay. Marka ugu horeysa Snapseed baad la soo degi doontaa. Snapseed markaad ku shubato mobilkaaga waad markaa ku shaqeyn doontaa. Snapseed-ana qaybta hoose description-ka halka ayaan ku dhigi doonaa ee halka kala deg. Hadda sawirkii ma soo qaadi doonaa isagoo original oo noocaas markaa. Hadda open baan odhanayaa. Open marka aad tiraahdo waxa uu ku dhex geynayaa qaybtii sawirada. Saas darteed sawirada marka uu dhex geeyo sawirku halka uu kugu jiro ama sawirka aad doonayso inaad hagaajiso ayaad la soo bixi doontaa. Hadda anu sawir baan la soo baxayaa. Sawirka marka aan la soo baxo qaybtan markaa ka eegi doonaa sawirkii waa kan isagoo markaa originalkiisiya oo aan wax effect lahayn. Saas darteed sawirkan hadda waan qurxin doonaa waxaana ka dhigi doonaa noocaasan ka dhigi doonaa aad markaasi arkayso noocaasan u bedeli doonaa. Saas darteed hadda sawirku waa originalkiisi waxaan bilaabi doonaa coloreyntii iyo editing-kii baan markaa ku bilaabi doonaa. Marka ugu horeysa uma baahnid in markaa aad tools fara badan u isticmaasho. Kaliya waxa aan markaa adeegsan doonaa oo aan sawirkan ku hagaajin doonaa vintage. Wadiga arkaya vintage-kaasan isticmaali doonaa. Sidoo kale waxa aan isticmaali doonaa white and balance. Waxaan isticmaali doonaa portrait-kaasan markaa isticmaali doonaa. Sidoo kale waxaan markaa isticmaali doonaa tone image. Afartaasoo kaliya ayaan u adeegsan doonaa inaan qurxiyo sawirkan markaan aan ka dhigo sawir si fiican markaa u muuqda. Hadda ta ugu horeysa waxaan ka bilaabi doonaa vintage-ka. Vintage-ka markaan ka bilaabo qaabkan uu soo baxayaa marka effects fara badan buu leeyahay ka aad markaa doonayso ayaa dooran doontaa. Wadiga arkaya qaabka marka ay sawirku u bedelay marka. Haddana waxaan dooran doonaa 2 baan dooran doonaa taa ugu dambeysa. Saas darteed 2 markaan doorto qaybtan waxa aad markaa ka bedeli doonaa brightness-kii oo cadaankii, saturation-kii oo color-kii, still strength-ka iyo fitness strength. Intaasan markaa ku sameyn doonaa isbedel. Iminka cadaanka waxa uu kuma kordhinay saturation-kan markaa xogaa ku dari doonaa in yar wadiga arkaya color-ku markaa si isku bedelayo. Hadda aad kuma badin doono intaasan markaa ka dhigi doonaa 20. Saturation-ka 20 baan ka dhigayaa. 20 markaan ka dhigay style strength-gana waxaan markaa ka eegi doonaa isagana inaan wax ku daro. Marka isagana in yar baan ku dari doonaa waxaana ka dhigi doonaa 35. 35 markaan ka dhigo vintage strength-gana isagana waxaan ka dhigi doonaa waa qaybta hareeraha marka madoobanaysa si uuna aad kaaga madoobaanin aadna kaaga wada cadaanin dhexdhexaad baad markaa ka dhigi doontaa. Hadda waxa aan ka dhigi doonaa marka isagana sidoo kale 35.
5 markaan ka dhigo save baan odhan doonaa qaybtan. Wadiga arkaya sawirkii noocaas uu markaa isku bedelay. taa marka aan sameeyo haddana waxa aan markaa halkan qaybtan kasii samayn doonaa portrait baan dooran doonaa si markaa effect kale aan ugu sameeyo. 4 tool oo kaliya ayaan markaa u adeegsan doonaa sawirkan, wax kale kuma dareyno. wadiga arkaya kalaradan si isku bedbedelaya markaa oo nooca aad doonayso ayaad ka dhigan doontaa markaa nooca uu sawirkaagu ku soo baxo ayaad ka dhigan doontaa. hadda anu waxa aan dooranaya markaa hadba ka uu markaa ku soo baxayo. hadda waxa aan dooranaya combo 3ga. haddii imika smooth 1ka aan ka dhigo ama smooth 2ga aan ka dhigo, waxa sawirka uu ka dhigayaa si nadiif ah markaa. wadiga arkaya nadiif buu sawirkii ka dhigayaa. hadda ka jeceshayban markaa adigu dooran doontaa. hadda anigu waxa aan dooranaya markaa kii ku soo baxa. hadda waxa aan dooranaya smooth 2 ayaan dooranaya. saas darteed smoothka markaan doorto face spotlightka in yar baan markaa ku darlici doonaa maadaama uu 0 yahay 0. in yar baan markaa ku dari doonaa. wadiga arkaya inuu colorka xoogaa markaa isbedelayo. in yar baan markaa ka dhigi doonaa. in yar ayaan ku dari doonaa markaa 18kaasan ku daynaya. skin smoothkana waxaan ku darayaa in yar ayaan markaa ka yareynaya maadaama markii hore 100% oo ahaa bar baan markaa ka yareyn doonaa. haddaad ka wada yareysana sida originalka uu sawirku kusoo noqonaya. saas darteed waxaan ka dhigi doonaa 50 baan ka dhigayaa. 50 markaan ka dhigo clarity-gana waxaan ka dhigi doonaa markaa 0ga siisaan ku daynaya maadaama haddii iminkaan kusoo dhaweeyo oo aan markaa ku kordhiyo wadiga arkaya caddaan buu noqonaya. haddii aan ka yareeyana markaa sidiisii madowgiibu markaa ishu noqonaysa wadiga arkaya indhaha. saas darteed 0 baan ku dayn doonaa. okay baan markaa siinaya sawirkii. okay markaan siiyo hadda sawirku sidiisii horiyo sidan waa markaa uu ku kala duwan yahay. si backgroundkuna markaa uu qurux badnaado waxa aan qaybtan u adeegsan doonaa white balance-gan markaa adeegsan doonaa. white balance-ga temperature-ka waxba ku dari maayo oo waxaan sidiisa ku daynaya 0ga. tintiga ayaan ku daraya markaa si colorka backgroundku uu isku bedelo. wadiga arkaya colorka backgroundku waa isbedelaya markaa noocaas isku bedelaya. saas darteed noocaas marka aad sidaa ka dhigto sax baad odhan doontaa. sax marka aad tidhaahdo waxa aad markaa dooranaysaa qaybta ama fallaadha yar hoos ujeeda. fallaadha markaad doorato view edits baad kasii dooran doontaa. view edits markaad doorato halkan waxa aad markaa kasii dooran doontaa white balance. white balance markaad doorato taa dhexda ee edit ama burushka uu saaran yahay ayaad dooran doontaa. halkan markaa waxa aan ka masaxaynaa ama aan ka bedelinaa qaybtan wejiga. halkaa marka aad doorato qaabkan uu kugu soo baxaya markaa sawirka maadaama uu wejigiisii ama colorkii wejiga uu isbedelay waxa aan ka dhigaynaa sidiisii caadiga ahayd ayaan kusoo celinaynaa. qaybtan white balance-ga 0 baad markaa ka dhigi doontaa. 0 markaad ka dhigto waxa aad bilaabi doontaa inaad qaybtan ka masaxdo. saas darteed qaybtan aan imika ka masixi doonaa. intaan ka masaxayo ayuunbaa markaa aan eegi doonaa qaabka markaa uu soo baxo. xogaa qadar intaan masaxayo kadib waan isku soo laaban doonaa.
ka hadda waan dhamaynay waa odiga arkaya hadda markaa qaabka uu ekaaday backgroundku waa colorkiisii oo markaa colorkii aynu saarnay buu leeyahay. sidoo kale wejiguna waa colorkiisii markaa originalka ayaa caadiga ahaa. saas darteed odiga markaya qaabka uu ekaaday. toolka ugu dambeeyaan isticmaali doonaa markaa waxaa noqonayaa tone image. tone image markaad isticmaasho keliya waxaad ka isticmaalaysaa saturationka, wax kale ma isticmaali doontid. markaa saturationka ayaad isticmaali doontaa si colorka backgroundka markaa u bato ama u kordhismo. markaa hadda adiga arkaya colorka backgroundka marka uu qaabka noqdo waan ka masixi doonaa sidoo kale qaybtan wejiga oo sidiisii baan kusoo celin doonaa. backgroundkuna saas oo ahaanaya. hadda colorkan okay baan siinaya, saasan markaa ku daynaya. haddana sidoo kale halkii baan ku noqonaya mar labaad. tone image baan ku dhufan doonaa. qaybtan editing aan ku dhufan doonaa. qaybtan 0 baan ka dhigi doonaa. qaybtana markaa taaban doonaa. waan masixi doonaa markaa wejiga waxaan kusoo celin doonaa sidiisii caadiga ahayd ayaan markaa kusoo celin doonaa. adiga arkaya sidiisii caadiga ahayd ayaan kusoo celin doonaa. intaan sidiisii kusoo celinayo qadar kadib aan isku soo laaban doonaa. hadda waan dhamaynay. wejiguna waa saxdii oo wada colorkiisii caadiga ahaa. backgroundkina background qurux badan baan ka dhignay. xataa dharka colorkooda waad bedeli kartaa oo imika garanku saamo ahayn markii hore. hadda sax baan odhanayaa. saasan markaa qaybtan safeka odhanaya. hadda sawirkii wadiga arkaya qaab aad u qurux badan buu noqday. markii horena san oo ahaa, imikana waa sidan. garanka colorkiisa wadiga arkaya sidoo ahaa, haddana siduu yahay wadiga arkaya. backgroundkuna qaabka uu yahay markaa wadiga arkaya. wejiguna iyo markaa jirkaaga kale caadiga ahna waxaad ka dhigi kartaa sidiisii caadiga ahaa ee markaa originalka oo markaa wax effect kuma samayn doontid. adiga oo backgroundkana ka bedelaya, dharkaaga qurxinaya, ayaad markaa wejigana sidiisii u dayn kartaa. hadda wadiga arkaya sawirkii sawir aad u qurux badan buu noqday. sawir markaa la daawan karo, indhahana aad u soo jiidanaya ayuu noqday. afar tool oo kaliya ayaynu isticmaalnay. afartaana haddaynu eegno imika qaybtan haddii aan ku noqdo wadiga arkaya vintage, portrait, white balance iyo tone image oo kaliya ta ayaan isticmaalay. afarta tool baan isticmaalay. wadigana arkaya sidoo markaa u ekaada sawirkii aad iyo aad buu markaa u qurux badnaaday. aad iyo aad ayuu u qurux badnaaday. waxa kaliya oo ku suurto gelinaya inuu sawirkaagu qurxanaado ama sawir aad u qurux badan noqdo marka aad editing garanayso ama marka aad color saarayso, in aad kamarad original markaa ku qaado oo kamarada mobilka caadiga aad ku qaado. haddii imika kamarad kale ama kamaradahan kale applicationada mobilka lagu shuba aad ku qaado, kamaraduhu waxay leeyihiin marka kuwa kale filter ama effect bay leeyihiin. marka sawirkii ma editing garan kartid markaad kamarada ku qaado. balse haddaad kamarada originalka caadiga ku qaado, si qurux badan ayuu markaa sawirka kugu editing gareysmaya oo aad u habeynaysa sawir indhaha soo jiitana aad uga dhigaysaa. hadda wadiga arkaya sawirkii sawir aad u qurux badan buu noqday. haddii aad markaa social media dhigtid ama bulshada aad la wadaagtidna, indhaha aad iyo aad buu markaa usoo jiidanaya. kaliya waxaad isticmaalaysaa tuulasha uu sawirkaaga kusoo baxayo ama tuulasha aad ku habeynayso. adigoon computer u baahnayn, photoshop u baahnayn, mobilkaaga ku habay sawirada oo ku qurxi. markastana waxaad xasuusnaataa in aad editing garayso sawir sidiisii originalka ah oo kamarada originalka ku qaaday. hadda sawirkan saasaan markaa ku save garaynayna. qaybtan ayaan markaa dooran doonaa. save baan markaa odhanaya. export baan kasii dooranaya. sawirku markaa imika saasuu device-kaygii igu gelaya. saasuuna ku save garaysan yahay oo markaa sawirkii device-kayga ku galay. haddana imika eego sawirkii
adiga arkaya qaabka uu yahay qaab qurux badan ay markaa u ekaaday beautiful kaliya ku editan garee ku habee ku qurxi sawiradaada adigoo mobilkaaga adeegsanaya barnaamijyada sawirada lagu habeeyana u adeegsanaya muuqaalkan intaasuu ka egyahay tan iyo muuqaalka dambe. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.